Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha qaaliga waa idin salaamay. Magacaygu waa Axmed Zeyn Saalax. Waxaan idin wadaa maanta video ku saabsan dhibaatooyinka u geystaan tviyada, moobeelada iyo kombiyuuteraadka teknolojiyada cusub dhibaatooyinka u geystaan. Sidaan ognahay qarniyada hore lasoo dhaafay wuu ka gedisan yahay, sababtoo teknolojiyada zaaid u horumartay. Moobeelad iyo qalabo cusub oo aan hore loo isticmaali jirin ayaa hadda la isticmaalaa. Saas darteeda dadka waxaa arkay ilmo yaryar iyo dad yaryar oo waxaa arkay ookiyaalo wataan. Awalka hore dad duq inta badan ookiyaalo qaadan jiray, balse hadda dhalinyaro arkay ookiyaalo qaadanayaan oo garaada qaadanayaan. Dhibaatooyinka ugu weyn waxaa sababa teknolojiyadan cusub si indhaha u geysanayso. Dhibaatooyinka ugu weyn waxaa ka mid ah kow, aragga dhow oo qofka dhibo. So mar walba uu isticmaalayo tviyada, isticmaalayaan inta badan qofka markuu oo wax fiirsanayo, dadka inta badan markay ciyaaraha daawanayaan, markay daawanayaan musalsalaadka, markay daawanayaan filimada, dadka inta badan nalka iyo damiya dhahaan nalkay dansanayaan. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qofka kala kulmaya waxaa aragga dhow oo qofka waay. Ilmaha inta badan waa aragtay ilmaha yaryariska hoosta telefishinka hoosta ka galayaan. Dhibaatada labaad, qofka hadduu oo midka koowaad oo hadda inii soo sheegay oo aragtida dhow qofka hadduu oo xanuun kaga imaado, kan labaad waa cuncun iyo waxaa qofka ku bilaabanayo iyo cuncun iyo xanuun zaaid ah qofka ku bilaabanayo, isha zaaid qofka u cuncunay. Dhibaatooyinka ugu weyn maxaa xal ah marka haddii oo qofka oo dhibaatooyinkan iyo aragga dhow oo qofka waanayo, maxaa xal ah? xalka koowaad horta وجعلنا الليل لباسا وجعلنا habeenka ilaahay uguma talagelin in oo waxyaabo lagu daadaawado lasoo wax lagu fiirsado. Dadka inta badan looguma talagelin. Dadka inta badan habeenka waa in ay seexdaan, ama hadday wax qabsanayaan ilaahay inay caabudaan, ama maalinkaa loogu talagalo oo ilaahay wajacalna nahaara macaasha ayuu leeyahay, maalinkaa macaasha loogu talagalay. saas darteeda xalka koowaad aan siinaa waxa waaye dadka haweenkii in aydan isticmaalin teknolojiyada sida tviyada, moobeelada iyo kombiyuuteraadka. Haddii oo laga maarmi waayo, meel mugdi inayna ku isticmaalaan oo meel iftiin ay ku isticmaalaan. xalka labaad aan idin siinayo waa dadka barta. Sidaan ognahay teknolojiyadan dada barta oo waqti geliyo oo sanado qaadanayso oo beeso ku bixiyo, siibiso adduumaadka zaaid lagu bartaa, siibiso Soomaali jaamacadaha zaaid dadka ugu bartaan, ardayda waqti geliso. saas darteeda ardayda dadka barta iyo dadka ku shaqeysta oo shirkadaha u shaqeeyo oo kombiyuuteraadka inta badan ag jooga, waxaan tala ahaan u siinaa iyagana in ay ookiyaalo caadi oo gacan oo wax garaada ahayn in ay iska qaataan, si ay dhibaatooyin badan ishooda ay u geenin, ishooda u geenin. Insha Allah waa mahadsantihiin. Inta ka badan oo macnaha xal iyo waxyaabo kale ku saabsan waxaan idinkaga codsanaa in dhaqaatiirta la kaashatiin si intaan wax ka badan idin la socodsiiyaan. Ana intaan idin soo diyaariyay insha Allah inaa ka heli doontiin rajayna insha Allah. Dadka kalena la gaarsiiyo. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.